kurada wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Warbixinteenan waxaan ku soo gudbin doonaa Niisa iyo Fahad Yaasin qorshaha afkambiga ee ka dhanka Rooble, kalsooni darrada doorashada iyo saddex xaaladood oo gudhig u ah khilaafka cusub ee ka soo cusbanaaday doorashada iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. toddobaadkii inaan dhaafay Soomaaliya waxay soo gabagabaysay doorashooyinka oo dibdhac weyn ay ku yimaadeen tan iyo sanadkii hore, iyadoo la guddoonsiiyey sharci dejiyaasha ee la doortay shahaadada ee guushooda. dabadeed waxaa dhacay saddex arrimood oo xumeeyey xilli siyaasadda ay u muuqatay mid degani. mid waa xubin muhiim ah oo ka tirsan dowladda federaalka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo iska fogeysay barnaamijka doorashada, iyadoo ku eedaysay ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen Rooble in hoos uu dhigayo federaalka. talabaad, hay'adda sirdoonka qaranka ee Niisa ayaa ka digtay weerar lagu qaado labadaba ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. saddex, ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweyne Farmaajo ayaa fagaare isku afdhaafay eriyada ereyga midowga Afrika. saddexda arrimood waa soo koobidda ee qaska ka taagan Soomaaliya, waxaana sidoo kale ay muujinayaan xiriirka wada shaqayneed ee ka dhexeeya hay'adaha muhiimka ah ee dowladda. ugu horreyntii, khilaafka ee arrimaha doorashada. Talaadadii, maamulka koonfur galbeed ayaa dhaliilay qaabka uu wax u maaraynayo arrimaha doorashada ra'iisul wasaare Rooble, iyadoo madaxtooyada ee maamulka koonfur galbeed uu ku eedeeyey Rooble ku takrifalka ee awoodeed kadib markii isbeddel dhowr ah uu ku sameeyey xubnaha guddiga fulinta ee doorashada heer federaal oo ah xubin oo loo xil saaray maaraynta arrimaha doorashooyinka qaranka. maamulka koonfur galbeed sinaba ma aqbali doono hamiga duurjoogta ah ee Rooble oo wax u dhimaya madaxbannaanida ee heer maamul goboleed, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka koonfur galbeed. koonfur galbeed waxay ka falcelisay go'aanka ra'iisul wasaare Rooble ee xilka looga qaaday maxamed xasan ciro, guddoomiyihii hore ee guddiga federaalka ee FID, oo lagu beddelay Irshaad Maxamuud Sheekh, iyo sidoo kale in xilka laga qaaday Cabdiraxmaan Cabdicasiis Aadan oo lagu beddelay Xasan Cali Yuusuf. sidoo kale horaantii toddobaadka Rooble waxa uu aqbalay liiska ay ku qoran yihiin in ka badan 300 oo xildhibaan iyo senatar oo la soo doortay, marka laga reebo 3 xildhibaan oo laga soo doortay maamulka koonfur galbeed iyo mid laga soo doortay maamulka Hirshabelle. 4 xildhibaan ee la joojiyey doorashadooda waxaa ka mid ah Fahad Yaasin oo hore u ahaa agaasimaha hay'adda Niisa oo hadda ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweyne Farmaajo. Rooble ayaa u hambaliyeeyey guddiga FID ee doorashada federaalka ah oo ansixiyey marka laga reebo 4 xildhibaan, isagoo ku tilmaamay in inta kale la siiyo shahaadooyinka iyo aqoonsigooda. koonfur galbeed iyo Hirshabelle ayaa cambaareeyey oo diiday ficilka ra'iisul wasaare Rooble iyo ficilka ee guddiga doorashada ee heer federaal, gaar ahaan guddoomiye Muuse Geelle. labada maamul goboleed ayaa ka cabanayey in 4 xildhibaan laga reebay liiska la ansixiyey, iyagoo sabab uga dhigay in xildhibaanada la doortay ay soo mareen dhammaan hanaanka doorashada ee loo baahnaa oo ay ku jiraan guddiga xalinta khilaafaadka ka hor inta aan lagu dhawaaqin xildhibaannimadooda. inkasta oo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ee federaalka ah ay xushaan musharaxiinta qaab qabiil, haddana guddiga FID ee doorashada heer federaal waa inay caddeeyaan. waxay noqotay arrin adag in la dhammaystiro nidaamka ee habraaca doorashada kadib markii habraaca ee doorashada dhammaan maamul goboleedyada ay ku xadgudbeen, ayuu yidhi Cabdimaalik Cabdulaahi oo ah cilmi baadhe Soomaaliyeed. natiijooyinka doorashada waxaa si buuxda u maamulayay hogaamiyaasha gobollada iyagoo la kala safan dhinacyada siyaasadeed. intaa kadib waxaa jirta kalsooni darrada ee ka dhaxaysa wakaaladaha iyo madaxda sare ee dowladda iyo dowlad goboleedyada. xitaa ka hor inta aysan dhammaan maalinta Talaadadii, Niisa waxay sheegtay in madaxda ugu sarreysa ee dalka oo ah madaxweyne Farmaajo iyo Rooble ay wajahayaan khatar oo uga imanaysa
dagaalamayaasha taa oo sare u qaaday khatarta ee kooxaha argagixisada. digniintani ayaa timi kadib markii dhowr jeer oo hore uu ra-iisul wasaare Roble uu ka cawday khataraha dhanka amniga ah oo ay wajahayaan shakhsiyaad caana oo uu ka mid yahay. 4tii subaxnimo niisa iyo twitterka ku qortay, waxaan madaxda dalka la wadaagnay qorshaha ay abaabulayaan kooxaha xigjirka ah, kaas oo lagu beegsanayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qaranka. maxamed daahir oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dagaalamayaasha ayaa hogaaminaya qorshaha siday sheegtay niisa. dagaalamayaasha ayaa si degdeg u beeniyey sheegashadaasi, iyagoo sheegay inuusan jirin wakiilkani ee lagu magacaabo maxamed daahir. ciidanka niisa ayaa taageersan taliyahoodii hore Fahad Yaasiin, waxaana Roble uu ka cabsi qabaa qorshe ka dhana oo looga jawaabayo hakinta ee kursiga Fahad Yaasiin. sii deynta macluumaadkani ee hay'adaha sirdoonka lafteeda ayaa ahayd tilmaan muujinaysa kalsooni darro. Cumar Cabdirashiid, ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay si kasta ha haatee digniintii ugu dambeysay ee twitterka ee niisa waxay muujinaysaa dareenka argagaxa leh qabsoomidda doorashada. ayuu yidhi haddii aan la soo saarin tallaabooyin ku filan oo lagu xakamaynayo madaxda niisa, hay-addu waxay noqon doontaa masraxa dhexe ee qorshaha howlaha ee ka dhanka ah Roble, ayuu sheegay Sharmaarke. intaa waxaa dheer siyaasadda ciyaarta ah, laakiin niisa ayaa sheegtay inay ka soo horjeedo dhaqdhaqaaqyada xunxun. sheekh shariif sheekh axmed, madaxweynihii hore ee dowladda kumeel gaadhka ahayd islamarkaasna kula tartamaya doorashada madaxweyne Farmaajo, ayaa facebooka ku qoray waa wax laga xumaado in hay-adaha sirdoonka ee loo xil saaray inay sugaan ilaalinta ee amniga ay buunbuuniyaan kooxaha argagixisada ah oo ay cabsi geliyaan madaxda sare. cabdikariim guuleed ayaa ku dooday marka loo eego khilaafka siyaasadda iyo amniga, niisa fariinteeda ma muujinayso wax aan ka ahayn isku day oo lagu doonayo in lagu afgembiyo Roble si cad ugama jawaabin hadallada niisa, balse qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegay feejignaanta lafteeda ayaa tilmaan u ah dib u dhaca doorashada. Roble kuma dhiiran karo inuu caddeeyo qorshihiisa ku aadan doorashada, ayuu ku dooday aadan awxirsi oo ah falanqeeyo siyaasadeed. waxaa jira ciidamo ku dhuumaalaysanaya halkaasi oo loogu talagalay inay cabsi geliyaan isaga ama cid kasta oo loo arko in khatar ay ku tahay doorashada iyo sida uu doonayo madaxweyne Farmaajo. niisa oo twitterka soo dhigtay 4tii subaxnimo hadallada ku saabsan khatarta ka dhanka Roble waa mid ka mid ah ciidamada, ayuu yidhi aadan awxirsi. intaa waxaa weheliya beesha caalamka, laakiin kalsooni darrada Soomaaliya kama jirto oo keliya hay-adaha Soomaaliya dhexdooda, sidoo kale waxay taabanaysaa xidhiirka hay-adaha shisheeyaha. toddobaadkani madaxweyne Farmaajo ayaa baajiyey go'aanka ra-iisul wasaare Roble ee dalka looga eriyey wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha midowda Afrika ee Soomaaliya Francisco Mandera, kadib markii lagu eedeeyey inuu ku kacay fal dambiyeedyo. Roble ayaa ku wargeliyey guddoomiyaha guddiga midowda Afrika in Soomaaliya ay ku dhawaaqday in diblomaasigan ee u dhashay Mozambique uu ku kacay falal aan waafaqsanayn maqaamkiisa, islamarkaana lagu amray in Soomaaliya uu uga baxo 48 saacadood gudahood. falanqeeyaasha ayaa u arkaa in Roble uu ka leexday waddada diblomaasiyadda oo ay ahayd inuu u sii maro caydhinta danjiraha midowda Afrika wasaaradda arrimaha dibadda. taa beddelkeeda lama ogeysin xitaa wasaaradda arrimaha dibadda, sababtoo ah kalsooni darrada ka dhex jirta Roble iyo wasiirka arrimaha dibadda oo ku dhow madaxweyne Farmaajo. ma jirto wax tafaasiil ah oo ku saabsan falalka lagu eedeeyey warqadda ra-iisul wasaaraha, laakiin waxay timi 5 bilood kadib markii ku-xigeenkii Mandera iyo diblomaasiga ee Uganda Malongo isagana laga saaray Soomaaliya oo lagu eedeeyey falal la mid ah. taa beddelkeeda madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkaystay in midowda Afrika uu yahay saaxiibka adag ee Soomaaliya, gaar ahaan la dagaalanka argagixisada. wuxuu ku gacan saydhay in go'aanka Roble uu ahaa
mid aan awood u lahayn caydhinta ee danjiraha mandera iyo danjirayaasha kale ee jooga soomaaliya waxaa waraaqahooda aqoonsiga ka guddoomiyey madaxweyne farmaajo oo ah ilaaliyaha madax bannaanida dalka ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay villa soomaaliya isagoo madaxweynuhu intaa ku daray in wasiirka arrimaha dibadda aan loo soo gudbin warbixin muujinaysa in danjiraha midooda afrika mandera uu ka soo horjeedo madax bannaanida ee dalka. rooble waa madaxa xukuumadda, laakiin sharciga soomaaliya ayaa ah in madaxweynaha uu qaabilo ergada shisheeyaha. villa soomaaliya ayuu horey u eriday wakiil ka socday qaramada midoobe. tani waxa ahayd tii ugu horreysay ee ra-iisul wasaaraha uu ku kaco, inkasta oo dadka qaar ay ku doodayaan in madaxweynaha uu igmaday ra-iisul wasaaraha arrimaha doorashada. madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha uusan lahayn awood uu ku eriyo diblomasigani. midooda afrika ayaa la filayaa in dib u habayn uu ku sameeyo hoggaanka admis, laakiin ma cadda in ka bixitaanka mandera ururka qaaradda in uu isbeddel ku sameeyo si shakhsi ah, balse waxaa jira cabsi laga qabo in dibudhac ku yimaada doorashada ay halis gelin karto u qalmidda ee soomaaliya dayn cafinta ee IMF. muqdisho ayaa ballan qaaday